عليكم walaalaha ku xiran kanaalkeena Dansheeg ku soo dhawaada mowduuc ku saabsan buuraha Jowlan ee Yuhuudda xoog ku haystaan. Trump uu ogyahay in Israa'iil xoog kaga haysato buuraha Jowlan ee Suuriya ku yaal. Netanyahu wuxuu ku adkeysanayaa go'aankiisa. Maxaad ka ogtihiin buurleyda Jowlan? buuraha Jowlan waxay ku yaalaan waddanka Suuriya waxayna 60 kiiloomitir koonfur kaga beegan tahay caasimadda Dimashq waxayna si toos ah u raacsan yihiin maamulka Qaniidara. buuraha Jowlan waxay xuduud wadaag ka yihiin dhanka waqooyi Jabal Sheekh dhanka koonfureedna webiga Yarmouk jihada galbeedna harada Dabariya sidoo kale jihada bari waxa ka xiga dooxada Raqaad. masaaxadda ay ku fadhiyaan buuraha Jowlan waxay gaaraysaa ku dhawaad 1860 kiiloomitir square. intooda badan Israa'iil ayaa xoog militari kula wareegtay buurahan dagaalkii dhacay June 1967. Suuriya waxay isku dayday inay soo ceshato 1973. Israa'iil ayaa fashilisay isku dayga waxayna qabsatay dhul dheeraad ah. dhinacyada saxaashii heshiis xabad joojin ah 1974. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday sanadkii 1981 in lagu daro buurleyda Jowlan. tallaabadaas oo ah tallaabo aan helin aqoonsi caalami ah. sanadkii 2000 ayaa waxaa fashilmay heshiisyo nabadeed ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Suuriya oo soo celinta buuraha Jowlan ee haysto Israa'iil. heshiiskii haddana waxaa dib loo soo celiyay sanadkii 2008 iyadoo Turkigu dhexdhexaadinayo. Abriil sanadkii 2016 Netanyahu wuxuu sheegay Jowlan inta hadhay inay ahaanayso dhul ay leedahay Yuhuudda weligeed. Jowlan waxaa ku nool 2,000 oo Yuhuud ah ku dhawaad 150,000 oo Suuriyiin ah oo ka haajireen iyagoo uga qaxay gudaha Suuriya sanadihii 1967 ilaa 1973. maanta waxaa ku nool ku dhawaad 20,000 oo Suuriyiin ah oo badankooda kooxda ka tirsan kooxda loo yaqaan الدروسية diidana inay qaataan dhalasho Yuhuudnimo. Suuriya ayaa ku adkeysanaysa inay ka baxdo Israa'iil gabi ahaanba Jowlan inkastoo Israa'iil ay ka raacanayso muhiimadda ay u leedahay istiraatiijiyad ahaan iyo militarinimo ahaanba iyadoo ay ku taalo harada Dabariya oo ah meesha kaliya ee Israa'iil ka hesho biyaha. To safeguard its security from external threats. Today, aggressive action by Iran and terrorist groups in southern Syria, including Hezbollah, continue to make the Golan Heights a potential launching ground for attacks against Israel. موضوعنا intaas ayuu ku saabsan yahay. fadlan hadaad ka heshay kanaalka subscribe, videogana like. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.